koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan safarkii danaha soomaaliyeed u saan qaadayo sama kuwaara soo noqod wanaagsan sama kuwaara soo noqod wanaagsan war hadday marba safar inkaga caddahay maxaad madaxweynaha hore u raaci weyseen Italiane presidentiya Somali aryaaba madaxweynaha Italiana Scusami bil favore Kalamaan vieni qua sentimi bene non abbiamo in canale preparato e per devo portare delle gente a devono lavorare qua e se non qua non kufrista wareedahaya safarkii danaha Soomaaliyeed waa idin kale ma dan gaara loo safray ma sadan guud war dan gaara looma aado meel 13 saacadood diyaarad loo sii saarnaanayo una dan guud aan safar yaran ari dangaar hoobeetona naga shoodiya ku gorado doogna waxaan maqli jiray si hagoogani soo hagoogani harun maran side hawle kama harin habaarna u dheer marka aanu maalin kasta safar baxaya waan maqlaaye wax la keeno soo biiray wali ma maqal mana arag war maratila dhaanshay oo cid agteeda ku buubayba meesha degel jir loogama baahnee baraadarkii qubujig ma taadigi war safarka madaxweynihii dambe Itaaliya ku aaday noogu kaadisaan safarka madaxweynihii hore uu Kismaayo ku aaday makaanbaynkii baa bilowday muxuu jawhar iyo aadi waayay Hirshabeelle iyo aadi waayay iyo Galmudug muxuu Kismaayo uga bilaabay Dr. Nuuro safarka Xasan Sheekh Kismaayo ku aaday inta iska daysid safarkii ka horeeyo saaxiibka Ali Geedi ra'iisul wasaare hore ku aaday war naga si adugu war Cabdiraxmaan Amshukur madaxweynaha Mucaaradland sidii dibid ugu soo wareeray madaxweynihii hore Xashiq sidaas oo kale uu rabaa inuu maamul goboleedyada ugu wareero war may dheega jiray laanshan hala dabradaw shuungay geedo on faafi shardan boyto sheegay waleeri langi madawiina nin hay hata ka hor hatlay mu'aarad dhawaafo hooba nagadi shardan boyto sheego ilaahay noo hajaaba war baydhaw waa tagayay haddaad mucaarad saas u rabto iska aamusa soo gaaray buda baydhaw muxuu ka doonayaa niman lafta gareen wata qabsaday war galmudug waxa ka soo yeeray cabaad darawaladeena aad bay u bateen bay yiraahdeen marka hal darawal meesha ma lagu simi waayay adigu ma isleedahay galmudug baa hal darawal wadi kara warin xoolo daweeyay xaasid noogu tilmaantay xaqiiq ma ahan warkaagu dagaalka dhagax yaala meesha leeyahay ka socda shabaab iyo shacabka dhex maraya ciidan maamulo ka diriraya ma jira meesha galmudug sheeganaysa ma dadka shacabka ay dhigooda shirka kula tahay qorshada Tornuur ka dambeeyay ayaan u fahmay arrinkaas reer miyiga dagaalamaya eesha laga duugay maamulkan soo digay guxeen ee ku diganaya iyo nimanka aan daadashiyo xilal ku doodaya markii aan daymooday qalbiga la damqinaya war intaas inaad qoraal ka soo dhigtid xay farta ka saar war ma haysin Puntland waxay tiri waxaan u diyaar galoobaynaa doorashadii bajaaj magaalada ma lagu arkala yiraahdeen ciidankan waa in magaalooyinka ka baxaanay tiri garawana waxaa tagaya la yiri nin la yiraahdo jabiye ilaahu hana jibinin jabiye musharaxiin badan waa jabinaya laakiin bajaajyadu ma nabad iyo nolol bay noqdeen horta garowe Abi Ahmed wakiil ma u jooga war Abi Ahmed mar hore uu mamnuucay wakiil maamul goboleed war ma haytana meel mar dhow doorashada ka dhiyaasa koonfur galbeedu jabiye antiga latin jabiye meel malka gorada lafta gareen Abu Mansuur Huseene iyo Kaamir Zoomle isla hor fidhiyaan war musharaxa Cali Eedin maxaa uu tagtay dastuurka maneenga goran war waxaan maqli jiray Soomaali hadaad ammaan ka rabto dhiman maayo nolosheeda ugu caaya war muraad lagama leeyahay sugorta adiga sababtu waxay tahay waxaa jigjiga ka socda bandhig la yiri waxa lagu xusayaa Sayid Maxamed Cabdillah Xasan taaladiisana waa tii hore looga taagay meel badan oo waad ogeydeen hadda waxaan la yaabana 100 sano ka hor shabaabkii dadka leynaya hadii la xusayo soo in dadku hadda jooga la xuso la karaameeyo ma ahan marka ugu horeysa godane burcal lagu xuso oo ragga nool madax laga dhigo sheekadu haday nuuca tahay raqba waa rageede annagana waa noo dhuusama reeb iyo xuska aadan cayrow war mar haday saasta siyaarta shabaab hal mar asal bilaawta arooyaa baaba leedii ku dhinta maxaad xusaysi Xasan Daar aweesaab noole hadda ma xustiino war nin loo lama xusay naga aamusa markuu dhintaa la xusayaa bacda dhimasho suga war abwaan gaariye wuxuu yiri horta dhiman af maahe imiko la nool iyo ifkan kaaga baahnay wax yar oo aqoonsiya war waxaan ku nidhaanaguna ammaan anoo nool ayaduna af maahe dhimasha aqoonsi leh warba meydinka haya maanta ciidanka hooga dalka Soomaaliyeed ay sirqaan ka shaqeynay war ma haysiine Donald Trump wuxuu yiri waxa la ii keenay cod laga duubay
duubay markii la dilayay wariyihii Jamaal Khashoggi waan dhagaysan waayay ayuu yiri laakiin warbixin ayaa la iiga siiyey sababtoo ah dil bahalnimo ah ayuu ahaa marka niman yahow waxaan la yaabay Sacuudiga ma Donald Trump ayaa ka naxariis badnaaday tacaddaanna haysteen nin Trump ka roon yahay dad muxuu u taraya warniyo meel joog leysat الرجولة بصوت عالية war Nigeria nin gudoomiye degmo ah wuxuu yiri 8 sano mushaar ma qaadan wuusan u baahnayn markii la weydiina wuxuu yiri guri waa leeyahay oo intaan gudoomiye naqan ayaan dhistay biilka carruurtana waa iska helaa sidaa darteed ayaan iskaga dhaafay inaan mushaar qaato war gudoomiyaha jaamacadda ummadda waxa uu yiri lacagtana loo qoonday waa nugu yartahay saddex kulidoodna dhaqaale la'aan ay u xiran tahay lacag waa nugu yartahay ma ahane waa nugu badan tahay wax dhahaya waa la waay warnamada shaaka dhacday kaafiya kala dheeri ah wasiirkii yaatiya shiinaha tagay dhigiisu la kulmay guri buu geeyay yar oo wadooyin yar yar dhex maraan oo beer yar ku dhex yaala wuxuu yiri gurigan yaa leh anaa leh buu yiri xagee ka dhisatay buu yiri wuxuu yiri wadada highwayga mashruuceedii baan fuliyay 10% iga soo hartaan gurigan ku dhis wuu ka soo laabtay wasiirkii shiinayska soo safray Kenya yimid dhigiisii buu la kulmay wasiirkii isaga ahaa guri buu geeyay weyn oo qasri ah oo beer weyn ku taalo oo dhiraysan oo qurux badan oo jeedu waa weyn u dhex maraan oo tubooyin biyaha iska socdaan wuxuu yiri gurigan yaa leh aniga leh buu yiri xagee ka dhisatay buu yiri meel hawda buu gacanta u taagay wada halka loogu tala galay qarashkii loo qorsheeyay 100% ku dhistay buu yiri warkan hore faylahay kowde laakiin kan dambe 100% hal haba ma katabne walaaji dhan guri ku waalidii ma aha warnamayo xamar nabad ayaa ka dhacday tartanka feerka ayaa lagu qabtay 40 sano kadib 6 wiil ayaa isfeeray qadiijo maxamed diirina waa ka qudbaysay waa markii ugu horeysay ee tartanka feerka muqdisho lagu qabtay ayay tiri qadiijo waxayna tiri farmaajiye qayra ka hor miyaa qof feeri kari mar haddii feer la bilaabay oo dhalinyaro Soomaaliyeed isfeeraysto qool sagaariyo iyo qaniinana waa ku xigtaa isdiyaarsha waryaar tartankaas qadiijo qorshe kasta ka wadatay waa astaan nabadeed yaa allah ugaarteeni hadda inoo soo noqonaysaa shabaqayna diyaaraan ku dhigi kara sagaaradii xabadda ka carartini waa la helaa baciidkiina waa imaanaa geesihiisa isku laalaabana allow nabad waa tuma nimcada karna waa soo degaysaa war sagaarada qadar loo dhoofiye arki mayside nagala tag buuqa oo ma adaa diidi karta ukuma kaadiyan hayna arro sidii askar military oo naag ka cararaysa ama koox taraafiga oo jiid ka diriraysa ama madax iscayso haddana xaafad wada joogta miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheereey arro karnaa dil war hadii la iska dhaafay war yaa